يا البعيد النظر. بهجتنا انه يلا اللي تحبون يحزن في الاقطار من كل جانب يؤيد دين الله في كل دورة مثلها من عصائب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، موضوع aad maqlayseen wuxuu ku saabsan yahay kayfa tukhatitu lixayaatika, sideed naftaada u qorshayn kartaa ood ugu noolaan kartaa qorsho ama plan cad ilaa aad ka dhimato noloshaada. daraasa la sameeyey oo cilmiyeysan jaamacaddan Harvard oo taqaanaan ayaa waxay samaysay daraaso ah dadka noloshooda takhtiid u sameeya oo qorsho noloshooda u dejiya waa 3% qof. say arrinkaa u xaqiijiyaan ayay jaamacaddaasi waxay samaysay waa 1970gii waxay meel isugu keentay 100 arday. markaasay waxay ka qaaday seminar baa la siiyey, su'aalaha la weydiiyey yaa naftiisa qorsho cad oo uu yaqaano u degan yahay oo ku socda. 3 arday baa laga helay. 20 sano kadib ayaa la baaray ardaydii 100ka ahaa, noloshoodii oo dhan baa la raadiyey. waxaa la ogaaday 3dii arday ayaa wax muuqda oo la taaban karo noqday markaas. macnaheedu waxa weeye qofka naftiisa takhtiid u dejiya 3daas qof, 3daas qof oo naftooda qorshaheeda yaqaana, ayagaa mujtamaca mustaqbalka hogaamiya, ayagaa mustaqbalka liidariska ah, ayagaa dadka adduunka liid gareeya, ayagaa imaamyada ah, ayagaa dadka madaxweynayaasha u noqda, ayagaa adduunka dhan maamula. waa xaqiiqo cilmi ah wey. waxaa kaloo cajiib ah qofka naftiisa aan qorsho la'aanta ah ee aan qorshaha lahayn, waxaa la yidhaahdaa daa'iman yatacarad aw huwa curdatun lilmashaakil والصدمات النفسية والاجتماعية. waxaa mar walba ka hor yimaada dhibaatooyin asaga shakhsi ah naftiisa ah iyo dhibaatooyin mujtamaca ah oo ka yaabiya maalin walba ku dhaca. waxaa kaloo la ogaaday marka la fiiriyo qorshaha, innagu hadda haddaan isweydiinno yaa naftiisa ku tala gashan waxa uu 5 sano ama 20 sano kadib noqon doono, yaa raba inuu noqdo 20 sano kadib sidaas iyo sidaas iyo sidaas. marka takhtiidka la fiiriyo waxaa la yidhahdaa dadku waa 5 qaybood. qolo waxaa la yidhaahdaa aljaaduna almunطaliquuna almuxadiduuna gaayatahum, waa dad daacad ah oo naftooda ka adag, oo naftooda ayagu hogaamiya, oo naftooda waxa ay samaynayso u xadidan tahay, oo mustaqbalkooda u xadidan yahay. waa dadka la yidhaahdo hum
ضد الشر وناصرة الحق وي وددك شرطنا هر استاغا أدون كان حق أكالمي وي أو أدونك هقابي وي ددكاس قيب طلبات أو ددك كمدا وحال يلهدا وضد الجادون الراغبون في الوصول لغايتهم وضد أيقون الدلالية لكن وحي جعليهن إني دنت أيليهن قاران قول كود مركا قار كود وما عدا ما لا يصعدان مركا قار كود وما عدا لكن وي الدلاليا وضدك قيب بدن أساسا جرت وضدك اللي هذا وقوة للمجتمع وللأمة وأود المجتمع يأمد كتاغان تاي ددكاس وضدك سيء بدنيهن وحاجر ضد صدحات الباحثون الذين لديهم الاستعداد وضد خاذنية إني بدادان والديار لكن طريقي أن فهم سنين انقرنين وأنا وصانوا بضنا قيبت أفراد أو ضدك كمل أو حالي هذا والمسقطون غير الجادين وضد طريقة كدعسن أو أن ديار أهين إني نفط هذا قرشيان المنتظرون من السماء أن تمطر عليهم ماء وذهبا لحلول مشاكلهم وحسوغا يا إني السماد الذهب أصاد دادسو والسماد الروب أصاد دجسو ومشاكشي السماد حلسو سوغايا وسكفر يا وفكر يا لبا هايستا إنه كبح مرحبا ساسا ضد بدنا ساساجر مشكلة أنها هايستا سانو كبحنا من نقانا إنا كبحنا من ربنا ديار أمنيهن ما ديار قرونا qaybta dadka ugu dambaysa dadkaasi hadda afraad waa dadka markaad wax barayso ama aad wax u sheegayso ama aad rabto inaad hogaamiso ugu dhibka badan way sababtoo ah qofan meel u soconin oo ku wareeraysa qaybta dadka shanaad waxa la yiraahdaa al mutathabbitun way waa dad adiga niyada ka dilayaan marka tiraahdo war heed hal dadaal sahan la sameeyo wuxuu ku leeyahay war annaga sheekh way noo dhamaatay ard naga tag waxaad ka hadlayso waa riyo ku leeyahay waxba kama jira mareykan baa la yimid waa la wareersan yahay madaxa lagu socdaa waxba ma hayna naga tag ku leeyahay kuwaas ka carar meeshaad ku aragtay waxaan rabaa mas'ala inaan wax yar ka hadlo mas'aladaas waxa weeye marka aan leenahay waa inaad naftaada qorshayso waa inay laba arrimood ku cad yihiin ariga koowaad waxa weeye لابد أن يكون معك رسالة واضحة ورؤية واضحة للحياة وإن هيستين رسالة عد رسالة ذو حال هذا ومشن كوحد عنه إيه إن هيستين رؤية عد ووحد عنه فيشن كواي وإن لم نسكوا عديهن وإن هذا الرسالة واضحة إيه رؤية واضحة وحرب إن تعريفية أنقحة ما هي الرسالة وما هي الرؤية رسالة وحال هذا ووحى ليراهدو همده ودورك وطريقة أضربت إن أتكسعت إلى أتكلمت وطريق أن وقت كحددنين هدين لقويديو سي سهلا بوقفك وحولي هاي رسالتي في الحياة أن أعيش صعيدا وأدخل الجنة أنا رسالة إذا وحويه إن أنا راحيسنا أو قناعسنا ولا هذا هذا عن جنة قالوا وحكولي قف كله رسالتي في الحياة أن أعلم وأعلم رسالة وحوي إن أنا وحبرت ضد أنا وحبر وي وكلها يا أنبياء إله رسالة ضوء عديد النبي صلى الله عليه وسلم رسالة ديسة مركل لويديو محي الجواب تيسو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما أنا النذير المبين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رسالة عدوي محاض النوشاي ويقانا رسالة لي هذا رؤيتنا وحال لي هذا هدف محدد أضربت إن أتقاده وقف ربا إنه 5 سنة كذب نقضه محاض نقنص 5 سنة كذب إمام ما ربا إنا نقضه وشقي سنة
maxaa rabtaa 5 sano kadib inaad noqoto xaafidul qur'aan maxaa rabtaa 10 sano kadib inaad noqoto dhakhtar baa rabaa inaad noqoto maxaa rabtaa 10 sano kadib inaad noqotid inaan haystaan rabaa 3 cunug injineer aan ahaado xaafidul qur'aan aan ahaado fiiri waa ru'yo cad weey waxa la yiraahdaa risaalada iyo ru'yadu qur'aanka marar badan bay ku yimaadaan waxa risaalada kamida markuu qur'aanku ishaarayo ula ilaahi la fatawalla anhum وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم رسولك قوم كيجي ورسالة ربي إيسو دروان إذن جارسية أنا ما سيتك أنا مشينك لا إيسو دروان إذن شاقة وحكمت مركو الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة واضحة وي رؤيا وحكمنا مثلا مركو إلهي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون النبي صلى الله عليه وسلم وحولها رؤيا وحالي هذا أصلك وحاله إطلاقه قفكم مركو هردو لكن خيالك قفكم مركو نولي وكفكرنا والي هذا ما أنتو النبي مكة كبحي isagoon rabin xoog lagaga saaray intuu fiiriyay wakiilaha dhulka ilaahay adaan kuugu jecelahay hadaan laga ka saarina kama baxeen wuxuu go'aansaday inuu ku noqdo asagoo baytul maqdis u tukanaya ayuu nabigu qiblada raadin jiray in loo jeediyo qad nara taqalluba wajhika fi samaa falanuwalli annaka qiblatan tardaha in alladhi farada alayka alquran laraduka ila ma'ad نبي محمد هو النقطة النبي هو تخديدي هو فكري هشيسيو قلي ددال بو قلي إلى الرؤية سي أي حقيقة وذي وكل نقطة محاد عضي فضح الأعظم الذي لا فتح بعده النبي صلى الله عليه وسلم إن ماشي لغا ساري انتو صوق قلي وبلا الكعبة الدوشة إذا كآدامي النبي مركز الله ساري صلى الله عليه وسلم 8 سنة كدب marka ruuyo waxa la yiraahdaa waxa aad rabtay inaad noqoto quraankuna marba buu ka sheekeeyaa ya abati hada ta'wil ru'yaya qad ja'alaha rabbi haqqan wa riyada qofku wuxuu ku riyooda markuu dawaa la yiraahdaa laakiin maxan ka wadaa kelimadaas quraanka way ku timid marar badan waxaan rabaa inaan tusaale ku bixiyo qofka risaalada iyo ru'yada cadle iyo qofka aynan u cadeyn say noloshoodu kala tahay waxa la yiraahdaa qofka saaxiib risaalada wuxuu la mid yahay nin doon hogaaminaya oo kale doonta maxaa ku saaran badeeca ku saaran waxaad hogaaminaysaa guri caruurtaadii baa ku jirta xaaskaagii baa ku jira reerkii baad hogaaminaysaa waxaad hogaaminaysaa mujtamac baad hogaaminaysaa marka nin doon hogaaminayo kale weey wuu yaqaanaa meesha doonta burcad badeedu ay badda ka joogto alqaraasina meesha joogan wuu yaqaanaa ka leexanaya wuu yaqaanaa meesha ay degan yihiin dadka xunxunka ah wuu ka leexdaa qabaa'isha xunxunka meelaha degan yihiin dadka laaya wuu ka leexdaa wuu yaqaanaa markay timaado dabaysha caasifada oo xunta doonta halaagaysa markaasuu ka gaashaantaa asagoo badbaaday oo ciidankiisii badbaadiyay ayuu maalin walba tuulo amni u tagaa badeecadiisu gataa mid kale u tagaa badeecadiisu gataa hadhow buu doonta soo buuxsadaa wuu soo noqdaa ninka aan lahayn message mission iyo vision midna aan lahayn waa say dadku u badan yihiin maanta waa anigaas cabdisaaq oo la yidoon wad maanta xageen la aadi lahaa doon buu iska dhex fadhiyaa wuu wataa badeeca uga buuxo rag baa u saaran dabayl baa timaada shan bay kala degtaa qaraasinu ku soo dhaca xooli baa qaar laga qaataa magaalo kale u tagaa doonti baa laga bilqaysanaya waa inaga dhibkanaas qofku iska socdaa maalin cunug baa ka halaabay maalin islaamtii buu furay maalin mid bay isdagaaleen maalin xaq u guuray maalin mayn buu u guuray maalin boos Minneapolis buu u guuray maalin wuxuu u guurayaa xaq meel kale ka dhacaya meeshay maqasho maanta meeshaas wax ka jiraan bay u ordaya saasuu isaga dawareegaya qof sababtoo ah عنده ليس عنده رسالة وليس عنده رؤية وتصالة عدو عجيب أوي حالي هذا ذكر رسالوين كعدل لو حكم إذا نينك الذي جرى جون اف كندي أيام 1960 باللوجة يجيب خطبة أخيرة مكسوه حويري طبعا كان سنة وهذا باللوجة آخر كذا ضيع أيام تجينا هذا المريكنا
1969kii markay ahayd waa 10 sano wali ma dhamaanin ayuu ninkan la yiraahdo maxaa la yiraahdaa ninkan la yiraahdaa Armstrong oo dayaxan tagay buu dayaxan tagay markuu dayaxan tagay oo Mareykan dayaxii buu tagay dadkii oo dhan waxay xusuusteen khudbadii ninkaas waa ru'ya waadixa waxaan rabnaa 10 sano kadib inaan dayaxa dushiisa tagno وعجيب وي مركا ورسالة واضحة وي وحكروا كمدها إمام الذي جرى ابن منظور الذي جرى أبو الفضل جمال الدين محمد بن منصور اللي ابن منظور يا وحو قري وحل هذا وحو فكر جرى مر والبا إنه اللغة العربية وجعله مركا سوحي وحن رأينا نقرأ كتاب اللغة العربية مرجع قاموس معجم اللغة العربية نقط وحو قري كتاب لي هذا لسان العرب إلا ما أنت وكتابك وعجيب صد أو قاموس اللغة العربية معجم هلا قري وحكم إذا هادتك الرؤية عجيب كألها إمام حافظ ابن حجر بخاري أيوجع على بخاري ولا شرحي ما عندهم حق أنسى كتاب كأنه شرح صدًا يلح سنة أيو أدونك كوريجي إنه الشراح الحديث كأي علماء أو لجيستو أو بارا أو بحثيو صدًا يلح سنة كدبنا وحصاص عري فتح الباري شرح صحيح البخاري وحال يري لا فتح بعد الفتح علماء بيجرين فتح مكة كما وضع فتح الباري قال وضع صحيح البخاري شرح خلاص وضع ماضي وحكذا ما يمجران وحكمت نين هذا قال له من كان لي هذا متقنان لي هذا محل بيل جيت أو مايكروسوفت كان وحل لي هذا السجى يا ميدير أو صاحبه أيهن ومحل لي هذا بول أبين أيا وحل لي هذا وحيكف كري جيرين وحلي يجري حتى نك راب أوت بسكول سما راب أفوها وحلي يجري بالي وحان ربا إن كانت تكنولوجيا أدون كأن هو جامس قري كستنا أنك خسب كوجليو وكاني ما أنت وحون نقضي أغنى رجل في العالم منك أدوك وتاجر سنوي صاحب كينا ورابع أغنى رجل في العالم وأنك أفراد أدوك وتاجر سنوي صاحب كين وحكمت أنك هذا اللي كامدا لها وول مارتي متقنان نك إسكالها والتن بالإجري السوق أول جروسري مليار أو كويب يا خضار أيوه حبي يجري وحان ربا إن سمي الدكان أسعار منخفضة وعمال إيا الشقالة كرال جليلة أو أدونك عنكو قبصة محو كاني والدكامة هذا هو تاجر سنوي أمريكان أو خطر سنوي مالكست محالة كاني محو رسالة سبحية هاي أسعار منخفضة وعمال مرتفعة هذا مالك مركز حقا العقد كوير تهوال مرضى آذيسة ما آذيس ما يسس ما آذيس جد كان مرتب بالدرجية سفيري قف بتاعنا أو كلها كان هل بيدي something أو كعاوناي وفير ورؤية دي سواي مركز ضدك سبحان الله هذا وضلها رؤية واضحة وين الجارين حقيقة وين جارين أن أرنك صدحات وأن ربنا أن إذن لا شرقرية وحوي سقفكو وأجادو وح ويهي يوحو النقندانو horta waa inaad ku talagasho inaad isbedesho qof kasto anaga mid ciriiri baa haysta dad badan fashil baa dhinac ka haysta waliga hadal aragtid qof ka sheekeeyay saasaan ahaan jiray markaan dhalinyarada ah saasaan uu fashilan yahay ogow noloshu ku fashilan yahay mustaqbalku ka baqaya marka maadigiisa hor ka sheekeeya mar walba waxaan rabnaa marka inaad niyeysato inaad isbedesho oo noloshaada aad qorsho u dejiso waxay ka bilaabataa marka ugu horeysa inaad fiirisid risaalataka alxaaliya hadda meesha aad taagan tahay fiiri markaad is ogaatid meesha aad taagan tahay waxaad fiirisaa meesha aad rabtid inaad taagnaatid 10 sano ama 5 sano kadib fiiri waxaad fiirsaa marka gaabka u dhaxay waxaa la yiraahdaa qofka inuu wuxuu xambaarsan yahay dumuux fakir buu xambaarsan yahay wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo oo muslim al-khurasani
ayaa waxaa la yiri hooyadii asagoo cunug yar waxay artay waa ninkii dawla umawiya kale dawla cabaasiyana taagay asagoo waxay artay gadoomay sariirta cunug yar say ku tiri ma bika ya ibni maxaa kugu dhacay wiilkaygayo markaasuu wuxuu yiri fiiri hooyo waxa maskaxdayda ku jirta طموح iyo fakar tantixu aljibaal oo buuraha dudumin kara baan la seexan lahay waxba maskaxdayda ka buuxa oo la seexan lahay wuu xaqiijiyay dawladii dhammayd buu reeyay dawlad kale u taagay fiiri waxaan rabaa marka inaad horta aad xambaarsan tahay fikir hadda مثلا waxaan rabaa nolosha caamka ah inaan risaaladeena fiirino aan kaleena waxaan leenahay risaalada adduunka aad kale leedahay markaan fakaro waxaan leeyahay irdaa Allah ta'ala inaan ilaahay kaali galiyo wa aishu sa'iidan aniga oo faraxsan oo qanacsan inaan noolaado wa astafiidu min waqtigayga aan ka faa'iideysto wa ufiidu lil aakhirina dadka kalena aan u faa'iideeyo saasan aaminsana haddaad aaminsantahay ma ka run sheegi kartaa saad uga run sheegto waa inaad dejiso way risaalo aad raacdo ood ku rumayso waxaa la yiraahdaa qofku markuu rabo inuu isbedelo marka ugu horeysa waxa ku soo dhacaya fikir anu hadda waan fakarayaa waxaan rabaa inaan isbedel ku sameeyo cilmigayga mesela waxaan rabaa inaan quraankayga isbedel ku sameeyo waxaan rabaa qoyskayga noloshiisa inaan isbedel ku sameeyo waxaan rabaa inaan isbedel ku sameeyo ganacsigayga maalka waxaan rabaa in qalbigaaga markay ku soo dhacdo waxa la yiraahdaa xasiiladii markaan helo waa inaan fariisto oo fakaro oo wixii aan go'aansado ayaa waxaan u gudbayaa hadafkaygu waa maxay hadafkaygu waxa weeye si aan u noolaado inaan baabuur gato mesela gaayada aad ka leedahay waa maxay waxaan rabaa inaan sharci lug dalo waa hadafkayga danta aan ka leeyahay ciyaalkan waa maxay waa inay ii caddahay danta aan ka leeyahay waxa weeye in aan barbaariyo saan iyo saan aan ka dhigo quraanka aan baro aan koriyo inta markii jira ay saan noqdaan hadda aniga ay anfacaan dadkan ay anfacaan waxa ka sii dambaysa hay gaayadaas hadda aad gaadho maxaa ka dambeeya inaan ku noolaado sacaado iyo raaxo hay sacaado iyo raaxo hadda heshad maxaa ka dambeeya inaan ilaahay raali galiyo jannada galo waxa ajiib waay gabar baa la weydiiyay waxa lagu yiri maxaad adduunka rabtaa isbedel inaad ku sayso waxa adduunka rabaa inaan baabuur gato خلاص baabuur baarta inaad gato hadda baabuur gato maxaa ka faa'iido waqtiga in safe garoobaya waa xaqrun waay hadduu waqtiga ku safe gareebo maxaa heleen untiju kathiran production badan baan soo saaraya waa ka waqtigan ka faa'iideysanaya waa sax hadda waqtiga ka faa'iideysto maxaa dhacaya الراحة وسعادة إن الراحيست أو أن كنا هذا نور دجن أو راحة له هذا نور راحة له كنا لا تمحك الدنباية وإلميس فرح درتي معنا ما هلك جاري كرا وقفكوا إلمين يا وفكر يا وفرح يا وقفكوا صلاح الله يا إخواني وحال الربع مركب أظن وحكى لكم مشغول هذا ربط النواش هذا إن القرشة ودجسو أنت كلي جامل فريسته وأدون كدن المشاقيش اسكحرته مال أتكلم فريسته أو فكرته أو قلن يبوك القاضته وراق وين وأنت سلاج ماشى أدكته وحتكون قرطة رسالة هذا نرش أتكلم مركل القرطة مال أضمانين والبأكيس كل شيء دربيه كل شيء صريت اللغة هذا ماشى التفيد كل شيء مركل ساحناي التفيد اللغة ساحة كل شيء oo ka soo horjeeda oo aad markaas seexatay arkaysid waxaad ku dhajisaa albaabka markaad baxaysid sababtoo qofka albaabka wuxuu roo inuu si ilooban albaabka ku dhajiyaa maalin walba markaad baxaysid meeshuu ku dhajiyaa ni waxa bari ila deganaajiya halmaan badan marka stoofka oo daaran buu halmaa maalin walba albaabka laga soo baxo wuxuu ku dhajiyaa waraaq weyn oo leeyahay stoof ay ku qoran tahay markuu sii baxayo arkaa uu soo noqdo uu fiiriyaa maalin walba annaga si wada noqonay marka indhaha ku dhufato waa noqonaysaa marka waraaqda haday meesha ku dhigantahay marka indhaha ku dhufato waxa xasuusanaysaa warniyahow noloshaada qaabkeedii aad ku socotay horta wadadii ma ku socotaa ma sawaamaya waxaan rabaa marka inaan kale ku xasuusiyo marka aad risaalada qorayso saddex shay mar walba muhiimada ka dhig naftaada ha halmaamin dadka qaarkood waxay ku dadaalaan inay dadka kale saacadad ku nooleysiyaan asaga is halmaamaya wuu is iloobaya
hooyooyinkeena u badan maxay sameynaysaa nin baa guursanaya ilmahay dhale waxay dhahaysaa si aan ilmaha caana u siiyo waa inaan cunto fiican cuno cunto badan bay cuna way cayile ayadoo cayilan uur kale yeelanay way sii wada shan cunug markay dhasho gabadhii yar waxay ogtahay 45 years old bay ogtahay ninkii ka tagay naag kale guursaday hadda wuxuu ku leeyahay maxamed laga qabanaa sheekh ciyaalkii maanta iskuul iyo dugsi u sii kala wadaay gabarey inta aadan adiga saan noqonin marka ninka cunto u kariso caruurta cunto u kariso ishka ugu macaan oo ugu khatarsan adoo karso naftaada ha iloobin naftaada dhalinyarada nimanka waa saas oo kale naftaada ha iloobin waa kow naftaada inaad geliso meesha rususha ilaahay dadka loo soo diray inay risaalada gaarsiiyaan wuxuu leeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa wuxuu ku leeyahay wastaghfir li dhanbika horta adiga dambi dhaaf naftaada u dalab inta dadka kale la gaar walil mu'minina wal mu'minat iyo ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka dadka kale ha iloobin marka ku dar risaaladaada waxa dadka kale u qaban lahaydna ku dar marka dadka kale ku darto ilaahayna ha iloobin asagana ku dar واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وجه إله إن راسله إلوبن مركز صلاة وحد كقرتا لقدا ذكرت كقر ها إلوبن إن القرطة وحد كقرتا نفسك الآخرين ربك ولذلك محمد أقول رسائل إرضاء الله أنا إن إلهك هالك يا أنوله وأعيش سعيدا أنقنا إنا كنا وراء هذا السعادة بوفس مرة إنا كنا وراء هذا مرة إنا بوقي وراء كنا وراء هذا أستفيد من وقتي إنا كفائدة استو من كساس كلها يكورن هدو شنص على همينك إنترنت كجرو بين واي ما رسالة سكما صعدة وأفيد للآخرين ضدك كان أنا فائدة وإنا رسالة أنت وحان ربا risaaladii aan ku dheeraaday waqtigiina waa dhamaad inta ana ka gudbin markaad risaalada aad dejiso oo aad meel ku qorto iyadoo weyn shay kaste oo noloshaada muhiim ka ah risaalo gooni ah u deji مثلا الجانب العلمي الجانب العملي shaqadaada iyo cilmi baradkaaga aqoontaada iyo caruurtaada iyo xaaskaaga iyo aabaha iyo hooyada iyo naftaada adiga naftaada iyo maxaan ku dhahaa quraanka mid walba risaalo u deji risaalo waadixa u deji marka intaas waa risaaladu way risaaladu waa shay daa'ima waligay waxaan rabaa inaan saa u noolaado ru'yada muhiim ah marka ru'ya waa mid kala saarta dadka waa ru'yada way sababta ru'yadu waxa weeye waxaan rabaa 5 sano kadib inaan meesha joogo waxaan aqaanaa wallahi wiil baa bari anagoo iskuul dhiganay jaamacad buu noo yimi markaas waxaan iri ardayga waa la wareysan markuu cusub yahay departmentiyad galaysa soo department of english baan rabaa inaan galo waa lagu qosray war Pakistan ma joogtaa english baa baranay كسوحي كويت بان وحن كسر مرة جامعة معلمين إنجليش كدقة العق بدن قاتانو وحن رب أنت إنجليش كبرتنا سكول كمعلم كان نقضه حتى وحن أقاني الصق أو إنجليش أو سكول كمعلم كور نرى شقف ما روس علوية كنا وحال هذا إن لم تعرف ما تريد لن تصل ما تريد هذا أقولني وحد ربطه ولقى مجاريس سمو التقانيد به هذا أنا رب هذا إن أوهاي كولومبوس أما منيابلس ودرايف جرايو أنا هذا مين كورن مجارايا منيابلس ولقي مجارايا مين بان كدري هذا تورنتو كدري ويلكم تورنتو كهربانيس ولقي مجاريس إنك ده نرجع الآن جفينا مرك ما مدان كلها يسوي حرب إن سعادة كنا ولا ضحى ودري كتير أسير درايف جرايو سوى تورنتو ما نسوي وضدنا هالك أجرت هماي والبوق يدال ببركة كجرتا أنا وحكا خلطين أديك النفط هذا فيري وحان روا مركا رؤية داس مركا أنكه الله دور أهلمود أو دق إن إشاران ربا كليا وحاوية كو وحا مهم نفط هذا إنا تخطيط وسميس قرشة إنا أدجس قرشها صوحو كب اللوضاء كو إنا كوجت وحلها الرقبة تعايل إنا جعشها إنا ضح النقط هم إنه كوجرو جعيل كاس مركو أنا مثلا وحن روا إنا أدرايف قرأيو منيابلس مثلا من صور المجال كامل نفط إذا هدي ما أنت دن أقول آخرين يسوع وأنا نخربين إذا ما داد عنكرت وأنا هرت أنا جعله كو مركان جعل هذا أيها هدنا وحكو إيمانية واحد التخطيط وأنا بلان أدج وأنا نجيب بأسقاط
وإن ما بقى تصمى وإن بابور في عنقاته جد كإمرين كرا وتخطيط كي مركان سمايو وإن سمايو وحلي التطبيق إن وضدي مرق وحي أبلاي جريوي أن سمايو وحال هذا قفك تطبيق السمايو أو وحي قرشيه فلية أصيغو أن قرشينين صغو أن تخطيطين قفك فلية ولقي وضد مقارو هو ما يا مركا تطبيق سميسد waxaad ku xijisaa wax leh al-azima go'aan azimadu waa maxay waxaan go'aansaday inaan gaaro ma aan waligay ma isbedelaay marka tadbiiqaas maxaa ku xiga al-injaz inaad wadada rabtay gaadid xaqiiqo weey inta kaliya samee koo horta wixii naftaada fakar go'aanso waxaad go'aansataa inaad quraanka xifdido labo waxaa samaysaa takhtiid waxaad dejisaa balaan iyo qorshe saad u xifdin lahayd deji waxaa samaysaa wax leh at-tadbiiq inaad naftaada ku tabaqdo wixii aad bilowdood fuliso waxaad samaysaa oo ku xijisaa wax la yiraahdo al-azima go'aan ninkii hadda aan ka hadlano baabuurka waday haddii baraf dhaco oo uu soo cararo soo noqdo ama intuu arka meel xun uu soo noqdo weligii ma gaarayo markii dhibaato ka hor timaado gudub dhaaf waxaad bartaa si dhibaatada loo xalliyo waxaa imaanaya injaaz ayaa imaanaya waxaan u malin waqtigu dhiga dhammaaday waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo hal arrin inaan idin xasuusiyo maadadan aan ka hadlaayay hadda waxaan idin sheegayaa waxyaabo badan oo theory ah waxaan rabaa insha allahu tacaala inta aan joogo hadduu ilaahay yidhaahdo maalinta isniinta ah galabkeeda dadka arday waalid gabdho rag qof kasta oo xiisaynaya inaan seminar ku bixiyo sida si waaqici ah oo practical ah oo theory aan ahayn oo xaqiiqo ah aad ku dejin lahayd risaaladaada mustaqbalka iyo ru'yadaada mustaqbalka waxaan rabaa marka dadka aan la kulmayo inuu qof walba asaga oo haysta risaaladii uu ku socon lahaa nolosha iyo ru'yadii uu sanad walba wuxuu qaban lahaa oo cad isagoo wata inuu trainingka insha Allah taala dhamaysto qofkii diyaar u ah insha Allah taala maalinta isniinta ah aan kulanno insha Allah taala Sheikh Yusuf iyana idin sheegi doona sida loo qaabayn doono laakiin maadaama oo muxaadarooyinka ay badan yihiin muxaadarada waxa ka muhiimsan wax yar oo practical ah oo table al xalinaysid ah oo hadda oo dhahay wallahi waan wareersanaa wallahi saana saxsan aad meesha ka baxaysid wallahi qof kasta oo noloshiisa qorsheeya adduunka wuu guuleystaa taa ogow waad guuleysanaysaa habaqin waad samayn kartaa haysdiin waad fashilantaa haysdiin waad weynta waad samayn kartaa marka jazaakumullahu khayran wallahu yaqul hawa sabiilu billah tawfiiq